marka hore waxaan salaama wasiirada iyo saaxiibaday gudoomiyaha gobolka Banaadir hay'adaha caalamiga internationalka dawlad goboleedna iyo dhammaan marti sharafta kaleeto runtii waxaan bogaadinaa marka hore si gaar ah saaxiibkay wasiirka arrimaha gudaha marka labaad wasaaradda arrimaha gudaha shaqo oo aad iyo aad runtii u qurux badan oo loo baahnaa isku xirkeeda iyo baahida weyn oo loo qabay oo ay soo abaabuleen oo isku soo xireen aad iyo aad aan ugu bogaadinaa waana ku mahadsan yihiin runtii shaqo loo baahnaa oo maaragtay xilligeedii timid waaye muhiimadda ay leedahay hay'adaha dawladda ee kala firirsan ee ku howlan diiwaangelinta fragmentationka ku jira oo la isku soo ururiyo oo la isku keeno oo hal xog wada noqda runtii waa camal oo shaqo aad u weyn waaye marka wasaaradda waa uga mahad celinaynaa inay annaga noo yeerto oo aan runtii kala soo qayb galna barnaamijkan shaqada nooga aadanna aan kala qaadano oo networking-kaas ay dhisaan runtii waa wax aad loo bogaadiyo xogtii firiirsanayd haddii la soo ururiyo muwaadinku waxa uu yeelanayaa tixraacaas wuxuu keenayaa meel loo raaco maalin uu dhashay maalin uu dhintay maalin uu guursaday intaas ayuu muwaadin ayuu yeelanayaa runtii marka tixraacaas wuxuu keenayaa sidii xogtaas loogu shaqayn lahaa oo muwaadinkaas loogu adeegi lahaa marka ugu dambaysa xogtaas waxay u socoto dawladda uga socoto waxa waaye in muwaadinka loo adeego oo shaqo loo qabto marka runtii waan aad iyo aad shaqo loo baahnaa waaye daliilna waxay u tahay shaqooyinkan qabsoomaya dawladnimadeena soo dhismaysa meesha aan ka nimid waan naqaanaa hadda hankan nagu jira iyo meeshaan u soconana waxay ka muuqataa abaabulkeena iyo shaqada qabsoomaysa runtii aad iyo aadaan arrintaas uga mahad celinaa xogtaan hadda aruursan waxaa kaloo ay tilmaamaysaa diiwaangelinta madaniga la yidhaahdo inaanan wax la yidhahdo fraudka la yidhaahdo ama dembiyada uusan qofku si sahla ku samayn karin hadda la tilmaamayay qof konton jir uusan dhigi karin 20 sanaan jiraa magaca uusan soo bedelan karin si uu dembiyo u galo marka qofka haddii lala socdo in loo adeegayo kaliya maahan waxaa lala soconayaa yani identity-giisa saxda ah marka runtii arrintaas waa arrin muhiim ah maanta inaan goobjoog ahaado sharaf iyo farxad ay tahay waana u mahad celinayaa wasaaradda arrimaha gudaha soo abaabusho. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.